dowladda Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay sheegtay in ay ka hortagayso in ay dhibaato soo gaarto xujayada sanadkan gudanaysa acmaasha xajka. Intaan ugu gudagelin warbixintan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad na soo booqato waxaan kaa codsanaynaa in aad nagu soo biirto mahadsanid. Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in ay qaaday tallaabooyin muhiim ah oo looga hortagayo in ay dhibaato soo gaarto kumanaanka kun ee muslimiinta ah ee sanadkan gudanaysa waajibaadka acmaasha xajka. Dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in ay sare u qaaday wacyigelinta caafimaadka iyo habka tiknoolajiyadda ee xiriirka xujayada sanadkan iyada oo ilaalinaysa in ay dhibaato soo gaarto xujayada sanadkan gudanaysa acmaasha xajka. Waxayna boqortooyada Sacuudi Arabiya sheegtay in ay sanadkan si kastaba isugu dayayso in ay yareyso tirada xujayada ah ee dhibaatada soo gaarta. Sanadkii tagay ee 2024 ku dhawaad 1000 qofood ayaa ku dhintay kuleel daran oo ka jiray magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina. Waxayna boqortooyada Sacuudi Arabiya sanadkaasi soo saartay in ay ka badan karto tiradan 1000 qofood ah oo ay soo bixi karto tiro kale oo dad ah. In ka badan kala bar dadkaasi waxay ahaayeen muwaadiniin aan diiwaan gashnayn oo ka kala yimid gudaha dalka Sacuudi Arabiya. Dadkaasi oo la sheegay in ay u geeriyoodeen kuleel daran oo ka jiray magaalooyinkaasi barakeysan. Waxayna dowladda Sacuudi Arabiya sheegtay in dadka qaarkood ay u geeriyoodeen isbuurasho ka dhacday magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina. Mas'uuliyiinta Sacuudi Arabiya ayaa sanadkan waxa ay sheegeen in ay kordhiyeen tirada qaboojiyaasha ah ee lagu rakibay wadooyinka ay maraan xujayada. Waxaana tirooyinka qaboojiyaasha ah la gaarsiiyay ilaa 2400 oo qaboojiye oo loogu talagalay in ay qabow ku dareemaan dadka xujayada ah ee soo gaaraya magaalooyinkan barakeysan. Sidoo kale waxaa la diyaariyay qalab dareemaya heerkulka jirka iyadoo wacyigelin loo sameynayo xujayada sanadkan. Gudashada acmaasha xajka ayaa sanadkan 2025 ku soo aadaysa iyadoo aad ay u kululaatay cimilada adduunka oo dhan. Si gaar ah waxaa looga dayrinayaa cimilada aadka u kulul ee bariga dhexe. Sanad kasta marka la gaaro gudashada waajibaadka xajka ayaa waxaa magaalooyinka barakeysan ee Sacuudi Arabiya buux dhaafiya kumanaan kun oo muslimiin ah oo doonaya in ay gutaan acmaasha xajka. Sanadkan dadkii cumreystay ee waajibaadka cumrada soo gutay ayaa waxaa lagu sheegay in ay gaarayeen ku dhawaad 4.2 milyan oo qof oo muslimiin ah oo gudanaysay waajibaadka acmaasha cumrada.